أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. waxaan ku soo dhaweynayaa saamilayda iyo maamulka shirkadda iyo shaqaalaha iyo xubnaha kaleba kulankeena xog waraysiga ah ee saamilayda shirkadda Telesom ama Telesom Group oo ujeedadiisu tahay inaynu isku xog siino oo xogta shirkadda iyo shirkadaha kale dhashada ku saabsan iyo macluumaadka guud ee shirkadda sidoo kalena aynu ugu talagalay saamilayda lafteedu inay gudaheeda iska barato oo ay isbartaan iyaga laftoodu waayo shirkad ballaaran baynu noqonnay dadkuna way tiro badan yihiin waxa laga yaabaa in la isaqoon laakiin in la isbarto oo dadka la iska bartaa wax muhiim ah maadaama shirkad la yahay oo waxa la wada leeyahay si alla socotaan ama idin ka muuqda waxa laga yaabaa kulamadii hore inaynu isugu yimi jirnay oo ka war hadlayna Telesom oo kaliya ama qaybta isgaarsiinta ama telecommunication-ka oo ah hooyadii aynu ku bilownay ganacsigan aynu markii hore maal gashanay laakiin maanta aan ahayn tii aad ogeydeen oo kaliya ee dhashay shirkado dhowra oo maanta madaxdoodii iyo maamulkoodii bay nala joogaan oo ugu horeeya Dar es Salaam Bank oo aad wada taqaanaan oo laga yaabo badankiinu inaad la macaamisheen sidoo kale waxa iyaguna jooga Somgas oo ah shirkadda inoo keenta gaaska cunto karinta oo ah iyadna mid ka mid ah shirkadaha ee Telesom Group aynu leenahay ee hoos yimaada shirkadda weyn Telesom waxa sidoo kale inala jooga Tech ama Telesom Electric Company oo ah qaybta leerka ee shirkadda Telesom dhammaan shirkadaha maamulkoodina way nala joogaan maamulkii guud ee shirkaddu way nala joogaan kulankeenu sidaan roob u sheegay wuxuu daaran yahay inaynu is xog siino oo aynu macluumaad isweydaarsanno xaaladda shirkadda guud ahaan iyo gaar ahaan intaba maadaama aynaan waqti muddo kale war qaadan aynu sanadka markay dhamaato oo isku yimaad jirna xisaab waxay maamulka shirkaddu door bideen in saamileydii mar kale loo yeero wixii xog iyo macluumaad ku saabsan shirkadana la siiyo iyadoo mataqaana laga duulayo in la isdhaafsado macluumaadka iyo xaaladaha kala duwan ee duruufaha dalka iyo shirkaddu ku jiraan waxaan ku soo dhaweyn doonaa marka hore maamulaha shirkadda isgaarsiinta qaybta isgaarsiinta Telesom Ciise Maxamuud Faarax oo warbixin inaga siin doona Telesom qaybteeda isgaarsiinta iyo duruufaheeda kala duwan markaan runtii Telesom ka hadlo Telesom waxay ahayd isgaarsiin markii ugu horeysay la furayna waxa la furay un qayb isgaarsiina oo telefoonada waliba markaa oo koobnayd oo ahayd telefoonada muxuu ahaantay mobile-ka iyo telefoonada landline-ka iyo SMS-ka kaliya intaas bay ahayd oo aynu ku shaqeynay muddo ah shirkaddu alxamdulillah way korodhay wayna kobcday adeegyadeedina way isbedeleen xarumaheedina way ballaadheen maanta marka aan runtii muxuu ahaantay tilmaamo saddex qaybood oo waaweyn ayaa qaybtan Telecomku hoos tagta qaybta koowaad waxa weeyaan qaybtii Telecomka ama isgaarsiinta
qaybta labaadna waa qaybta electriga qaybta saddexaadna waxa weeyaan qaybta financialka ama financial service waxa la yiraahdo qaybta adeegyada muxuu ahayd lacagta ama maaliyadda oo saad ay kamid tahay xawaalada ay ku jirtaan waxoogaa ka tilmaami doono saddexdaa farac ama saddexdaa qaybood ayaa telecomkii maanta qaybtii talabka ku harsan haddii aan intaa ka gudbo waxa jira iyaguna wax la yiraahdo value added service oo ah waxyaalaha baritaar u ah isgaarsiinta oo ay kamid tahay oo aad u taqaanin aqoon maal barnaamij la yiraahdo oo ka baxa shirkadu ay soo dayso oo aqoon runtii adeegan muxuu ahayd la yiraahdo saadka run ahaantii marka xaqiiqada loo kaco oo aan si dhaba isu wareysano waxa uu kambaniga u keenay sumcad weyn bal iska daa kambaniga oo dalka oo dhan oo Soomaaliland ayuu gaarsiiyay magaciisa meel aanu gaarsiinin dawladihii jiray kala dambeeyay oo muxuu ahayd kambaniyo waaweyn oo caalami ah oo sida Microsoft oo kale iyo ayaa madaxdeedu tilmaameen inay mudan tahay Telesom ama shirkad Soomaaliland oo la yiraahdo Telesom in lagu daydo marka runtii taas waxaan oran karnaa waxay u keentay ma aha gudaha iyo service-ka in uu dadkii u fududeeyay shaqadii in uu fududeeyay muxuu ahayd lacagtii lumaysay in uu fududeeyay muxuu ahayd waxay ku shaqaysanayeen oo dhan maahe waxa weey sumcad iyo waqtiga oo kooban dartii waxaan ku soo muxuu ahayd aan u soo daadagayaa saamilayda shirkadu tira ahaan markaan tilmaamo sanadkan 1513 xubnood ama saamile ayaa kambaniga u register-garaysan oo dalka gudihiisa oo dhammaantii dibadaha dhul badan oo caalamka mid ku kala faafsan maamulaha Dar es Salaam Bank Maxamed Ibrahim oo mid kamid ah shirkadaheena ee hore u tilmaameen bankigeena Dar es Salaam bal isna inuu xog inaga siiyo bankiga iyo sidoo uu shaqeeyo waxa uu bankigu qabtaa adeegyo badan oo ay ugu horeyso maalgelinta uu bankigu qabto in badan oo saamilayda kamid ahina ay og tahay waxa ugu horeeya waxa la yiraahdo muraabaxada oo ah iibka kala iibsiga waa iib ama ganacsi faa'iido la saaray kaasa kowka waxa ku soo xiga waxa la yiraahdo mushaarakada oo ah bankigu inuu cid ganacsi la wadaago ama ay wax isku darsadaan qofka ganacsadaha ah iyo bankigu ay wax wada yeeshaan oo ganacsi ay wada yeeshaan waxa jira iyaduna mudaarabadu iyadu wax kale maaha waxa weeye qofka macmiilka ah wuxuu la imanayaa fikrad wax laga soo saari karo oo aanu markaa isagu maalgelin u haynin bankiguna wuxuu samaynayaa inuu maalgelintii siiyo kadibna ay ku heshiiyaan in wixii ka soo baxa qofkii fikradda la yimidna inteeda badan qaato qofkii bankigiina uu dhankiisa kale oo isaguna wax ka helo adeegyada uu bankigu qabto aad bay u tiro badan yihiin waxa kamid ah oo aad loogu reeyay iyadana xagga transferka ama xawaaladaha xawaaladii caadiga ahayd ee taqliidiga ahayd baynu naqaanay oo halkan lacagta inta la dhigo hebel loo diro laakiin bankigu waxyaalaha uu ku soo kordhiyay dalka 6 sanadood waxa kamid ah in laga raystay lacagihii sharaa'iga loo diri jiray in si fudud uu bankigu kugu fuliyo oo laga yaabo wadamada adduunka meeshii aad joogtaba in aad u diri karto lacag haddii aad macluumaad banki ka hayso oo aad meel walba u diran karto sida oo kale lacag kasta oo meel kasta oo adduunka lagaga soo diro aan xawaaladaynu naqaanay ahayn baa iyadana bankiga waxay kugu imanaysaa account-kaaga ama xisaabta aad ku leedahay adeegyada uu bankigu qabto iyagoo aad u tiro badan waxaan imika electronicska ama qaybtan mobiladu ay noo soo kordhisay waxa kamid ah adeegii la sheegayay ahaa kaafiga oo ah qof kasta oo account ku leh Dar es Salaam Bank zaadna leh inuu labadoodii isku isticmaali karo isla markaana meel kasta oo uu joogo uu ka heli karayo shabakadda Telesom ama shabakadaha kale ee la walaalaha ah oo dhan in uu lacag account-kiisa kaga soo diran karo isla markaana uu kala bixi karo waxaynu oran karnaa waa ATM ama waa ATM uu jeebka ku sito qofku
oo aanu u baahnayn inuu ama xarun tago ama meel hodheela uu yaallo u tago laakiin mobaylkiisu uu u fududaynayo inuu lacagta meel kasta oo uu joogo uu ku heli karo kuna shuban karo waqtigoo yar awgeed waxaan soo dhaweynayaa cabdikariin xaaji muuse oo ah maamulaha Somgas ujeedadaynu u samaynay waxa ka mid ah ugu horeyn inaynu deegaankeena badbaadino mar labaad inaynu dadkeena shaqo abuuris ugu samayno oo dhalinyaro badan iyo dad aad u fara badan baa jaamacadaha inooga baxay inaynu dadkeena shaqo abuuris ugu samayno waa ujeedooyinkaynu u aasaasnay mar labaadkana inaynu maaragtay dee dhaqaalaheena iyo ganacsigeena iyo faa'iido samayno oo aynu saamileydii uga soo saarno faa'iido waa ujeedooyinkaynu kulliba u aasaasnay inaynu ka guurno nidaamkii hore aynu wax ku karsan jirnay oo ah nidaam aad u muklifa oo inaynu dhir qoyan soo googoyno oo aynu dhuxul ka dhiganno systemka traditionalkana inaynu ka guurno oo aynu u guurno nidaam casri oo bini aadamku maanta wax u karsado ayaa kulliba ka mid ah shaqadana waxaynu ku bilownay oo aynu ku hirgelinay filling station hargeysa barigeeda ku rakiban oo bahla la yiraahdo iso containers gaasta looga soo qaadayo dibadda yani nidaamkaasi nidaam runtii muklifa oo yani leh ma la yiraahdaa qiimaha qaali ka dhigaya weeye laakiin waxaanu ku ogaanay oo ku teesgaraynay inay tahay baahidii mid loo baahan yahay taasi waxay gelinsiisay inaynu u gudubno nidaamkii labaad ama optionkii labaad ee inoo diyaarsanaa oo ah inaynu hirgelino gas terminal ama storage facility magaalada Berbera aynu ku samaysano oo uu inoo markab dhani intuu inoogu yimaado oo halka inoogu shubi karo kaasoo runtii sawiradiisa aan halkan idinka tusayo aanan jeclaa in maaragtay yani oo ah baan u jeedaa geeskan Afrika ama area aynu ku noolahay ka ugu weyn marka aynu insha Allah ta'ala furayno oo aanan waqtigiisa aad u fogeyn baan taana idinka warrami doonaa waxa kulliba aanu halkan runtii aan jeclaan lahaa barnaamijka gas terminalka oo aad halkan sawiradiisa ku aragtaan gas terminalkaas wuu inoo dhan yahay samaysanayna gas tiibeen ku soo shubanaynaa walillahi alhamdu gaasta markaynu ku soo shubanana ujeedooyin fara badan oo aynu ka leenahay baa inoo hirgeli doona intii horena waynu ka soo survive garownay haddana halkaasaynu maraynaa way inoo waxaan soo dhaweynayaa injineer Muuse Cali Cige oo maamulaha shirkadda Tech ama Telesom Electric Company shirkadda Telesom ee weyni korontada waxa la korontada loo yaqaano ilaa iyo markii ay bilowday isgaarsiintaba waxuun bay ka bixin jirtay oo bimacnaa markaa way garab socotay hase yeeshee muddada badan ee shirkaddu soo jirtay intii badnayd waxay ahayd uun qayb ka mid ah isgaarsiinta ama department ka mid ah isgaarsiinta ayay ahayd korontadu oo markaa dabadeetna korontada siin jirtay dadka waxaana ama xarumaha ay leedahay wixii ka saa'ida ay bixin jirtay waxaana ay ahayd haddaan idiin tilmaamo shirkaddii ugu horreysay ee Telesom ee siisaa macaamiisheeda korontada maxay ahayd 24 saacadoodba ah ama maxay ahayd korontada joogtada ah halka shirkadaha kale ee markaa jiray ay ka siin jireen maxay ahayd habeenkii oo kaliya lighting ay ka siin jireen ugu dambeyn waxaan soo dhaweynayaa gudoomiyaha shirkadda Cabdikariin Maxamed Iid oo inoo sharxi doona guud ahaan shirkadaha iyo shirkadaba waxaan marka ugu horeysa halkan uga mahad celinayaa ilaahay nimcooyinka uu kor iyo hoos bay inoo siiyey waxaana mar walba inagu waajiba mahadnaqa eebe inaynu carabkeena mar walba aanu ka dhammaanin oo aanu ka bixin ujeeddada kulankeenana wuxuu ahaa mid isxogoreysi ah oo aanu idinka xog warramaynay waxyaabaha shirkadaheenna u qabsoomay waxyaabaha hadafkeenna ku jira ee aanu jecelahay in insha Allah sanadada soo socda laga madhan waxa runtii sanadka ku soo jira pipeline-ka horumar aad iyo aad u ballaaran oo shirkaddu ay ku tallaabsan doonto xagga tamarta xagga isgaarsiinta oo labada aan marnaba kala maarmaynin iyo xagga teknolojiyadda siiba dhinacyada maaragtay financial serviceska ama zaadka aynu leenahay waxa kale oo la soo kordhin doona insha Allah adeegyo cusub sanadka
bartankiisa kaas oo aan ugu talagalnay inuu u fududeeyo ganacsatadeenna kala gedisan habsami u socodka ganacsigooda waa tiknoolajiya casri ah oo u sahli doona in si kooban iyo si tafatiran labadaba ay dhaqaaqyadoodii ganacsi uga heli doonaan adeegyadaasi iyada oo runtii wax allaale wax kaaba ah ama infrastructure ah oo kharash ka geli doona aanu jirin taana ay shirkadu u sahli doonto wixii baritaar ah ee adeega ee lagu kordhinayana insha Allah ay shirkadu samayn doonto haddii la yiraahdo waa runtii waxyaabaha noqon doona inuu ganacsigeenu kala gedisan ama ha noqoto mid caafimaad ama mid hudheelo ama mid bangiyo ama mid waxbarasho ama ka dawliga ha noqoto inuu kaga tilmaanaan doono dalalkeenu jaarka nahay insha Allah waxaan ku tala jirnaa sanadka bartankiisa inaan daafurno haddii la yiraahdo طبعا waxaan ka marnayn tiknoolajiyada oo iyadana aan doonayno sanadka xoojinteedii oo qalabkii inoo yimid oo iyadana dhawaan haddii la yiraahdo aan maqli doonta waxyaabaha aan ku soo kordhinay suuqa oo runtii mar walbaba noo ahayd bartilmaame inoo wada ahayd in adeegeena global iyo goor walba la heli karo adeegaasina uu noqdo mid hufan oo raali geliya macaamiisha laba shay ayaa macaamiisha runtii asaas u noqonaya kaas oo qiimo macquulana inay helaan ka labaad oo in meel walba adeeg ay ka helaan himiladaasi inaanu ka midho dhalino waa hadafkii aynu asaasnay shirkadda isgaarsiinta oo hooyo u ahayd shirkadaha faraha badan ee maanta halkan laga sheegay run ahaantii waxaan jeclaan lahaa inaan isira dul taago maxaa inagu kalifay inaynu maalgashi ku samayno darafyada kale ee ganacsi waxa marka ugu horeysa inoo bartilmaameed ahaa in aynu eegno majaal cusub oo aan cid ku jirin si aanu suuq u ciriirsi aan loo wada dareemin kaas oo aynu ka bilownay Somgas iyo Dar es Salaam Bank oo ahaa runtii baahiyo dalku u baahan yahay waxaan ku soo koobi lahaa dardaarankayga aan runtii kaga bixi lahaa waxa shirkadda u maaragtay waxay ku socotaa shirkaddu horumarin shaqo qabad keenid iyo curun tiknoolajiyad casri ah daryeelka iyo hanashada macaamiisheeda sidaa darteed saamileeda waxa laga rabaa inay doorkooda qaataan waxaana ugu muhiimsan inay noqdaan ambaasadoro shirkadda idinka iskale ambaasadorkii inay u noqotaan waxa khaldanna aan noo soo sheegtaan idinkuna ka qabataan wixii saxsanna aynu isku taageerno gabagabaynu joognaa imika waxaan soo dhaweynayaa barsaamileyda iyo qaybteedii baa la gaadhay waxayna la jooga xaaji cabdikariim xuseen xaaji cabdiwaraabe odaygii dalka ugu weynaaya saamileyda shirkaddana ka mid guusha aynu gaadhnay ee shirkaddu dhallinyarada ka shaqaysay ilaahay haynoo barakay halkaasoo laga sii wadaa weyn sidii soo saaray ee ku hawsooday waqtigii cigaamay haydo hawl badan baa laga gaadhay waa la xeeynay sumadaalay ragna waa naga hor joogsaday uu soo saaray ka shaqeeyay allaha liibaan dhallinyarada ka shaqaysa shirkadda allaha liibaan waxay ka helaan allaha u barakay gobonnimada sharafkaana allaha inoo dhagay allaha inoo dhagayo nabadgelyada awaarta dadka iyo tadriibyadana allaha inaga helo shirkadda waxaynu ka helanaa allaha inoo barakay waxaan ku soo dhaweyn doonaa marka u horeysa Suldaan Axmed Daahir oo ka mid ah saamileyda shirkadda oo kelimad kooban inoo odhan doona insha Allah taala anu halkan dhowr jeer baan ka hadlay xaflado badan waxa haldhigaygu ahaa saddex qodob oo aynu adkayno odayadii hore waxay odhan jireen haddaad xaraga doona xamaraag joog haddaad xoolo doona xamaraag joog haddaad xilo doona xamaraag joog telesom ag joog baa ballankeennu ahaa waynu ku badhaadhnay alxamdulillaah
waxaan odhan lahaa aynu muujinno dadaalka iyo fikirka iyo waxa laynaloo sheegayo inaynu ka hawl qaadanno oo waxa ugu yar uu noqdo wixii laynalagu soo celiyey mahadnaqeega innagoo leh haddana aynu nidhaano barbarkay ka baxdaa waabakay la qaleen iminka waxaan u yeedhi doonaa xaaji aadan axmed dayriye saamilada shirkadda ka mid ah isna insha allah kelimad kooban inoo odhan doona waxaan aad ugu mahadnaqayaa howlwadeennada shirkadda telesom ama inta ay dhashayba guud ahaan uu hogaaminaya cabdikariim maxamediid iyo howlwadeennada guud ahaan aad baan ugu mahadnaqayaa run ahaantii waxa weeye telesom waxay ka mid tahay nicmooyinka ilaahayna siiyey dalka ku galaday bay ka mid tahay waxaa la yidhaahdaa ilaahay markuu xoolo kula damcay dadkooda ku siiya shaqaalaha telesom waxaan odhan karaa waxa weeye dee carruur wanaagsan oo ilaahayna siiyey carruurteena ilaahay noo barakeeyey weeye oo markuu xinala damcay carruurtii oo inoo wanaajiyey weeye allah inoo sii wanaajiyo aadna waan ugu mahadnaqayaa iminka waxaan soo dhaweynayaa xaaji faarax yuusuf nuur faarax adhigle toddobadaa nin ee matalan asaasay lacag may qaadan jireen mushaarana may qaadan jireen laakiin waxay samayn jireen dadaal fatway galeen oo si wacan u galeen inay waxay la siin karo iyo waxay qaadan karaan fatwadii waxa leeyahay mushaara ku balidid adigu percentage uma maartay loo soo qaaday waana kuwa ku guuleystay waanu aaminaadina way ku guuleysteen midda kale barigii aan la asaasay anigu asaasayaashii horaan ahaa nin walaalkay oo cabdilaahi yuusuf la yahay imkana ku jira saamalayda waxaan ku kari waayay walaal 3,000 lagu geliya 3,000 ii dhib anigu galaya war naga tag Soomaali ma aamine iyo dadka Soomaalida waxaan adigu saddexdii markuu ii dhiyay aniga yaamahay magaciisi baan ku qoray barigii dambe wuxuu walaalow waligay iyo waqay wixii aad iila timaadid waa aqbalaya ya markii dambe isaga saamilay dad kale ka iibsaday marka waa guul aad iyo aad bay arintaasuna anigana igu farxisay maanta inaan arko inta soo saamilaya oo markii hore saamilaygu iska yaraayeen imkana guul wanaagsan baynu ku marina waxaan marka hore soo dhaweynay intaan xagga dumarka u gudbin xaaji jaamac qumana maydhane oo isna ka mid ah saamilayda shirkadda كلمين نورن دونا anigu fariin baan idin farayaa wax ilaahay nasiiyana waan idin dareensiinayaa waa 8 qodob 8 qodob waa 4 ilaahay inagu itixaamay aamiin dhahay inuu 4 ka khayr badan ilaahay noogu bedelo 4ta ilaahay inagu itixaamay waa qabyaaladda waa qaadka waa qoriga waa qiiqa labada ugu dareen sun ay nadishayna waa qaad iyo qabyaalad inuu 4ta ilaahay noogu bedelo 4 ka khayr badan aamiin dhaha 4taayna waxa weeye qarannimo oo ilaahay ina dareensiiyo maalintii calankeenna aw qaaday cigaal iyo odayaashii la socday Allah u naxariistee waddaninimadii ku jirtay oo qabyaaladan halka ku tuuro waa qaadka inaan dhulkeenna ilaahay nimcada dhigay intaan qodanno quudkaan cuni lahayn sidii faarax sheegayay aynu kala soo baxno waa qoriga qalin uu socdaa kaay uu hirgalay waa taa dhallinyaradeenni diin iyo tudunyaba la wada baranayo taana inuu ilaahay qalin noogu bedelo maxaa ii soo adhay 4tii qiiqii baa ii soo adhay qiiqaana inuu ilaahay noogu bedelo qur'aan oo qur'aanka intaynu baranno sidii ilaahay yidhi ugu dhaqanno 8 halkaasaan idinku dhaafay waxaan soo dhaweynayaa xaaji aamin cusmaan axmed oo iyadna saamilayda ka mid ah oo insha Allah iyadna kalimeyn odhan doonta anagoo hudmay anagoo taagan barnaamijka ayaan aad iyo aad baan ugu mahadnaqay ilaahay cimrigana haydin dheer iyo caafimaadkana haydin kordhiyo insha Allah bismillaahi kariim awshuna haydin barakowdo hayna wada barakowdo gidigeenna qolun baan anigu doonay in hada kala yar hadlo waa qolada samkaas waxaan leeyahay anigu waxaan hooyooyin ku bilaabay iyadoo 5 intaan oraa ku jiray
حافظ ودم بان ولولا وجري سيدو شو توجيه هذه أدنى ولولا وجري wax badan baa iga aqbalay oo joojiyay oo imaka shita qolada Telesom haday tahay aasaasayashii ama maamulka ama shaqaalaha waxaan oran lahaa ragga waxa qaban qaabiyay oo Soomaalida inta leeg isu keenay oo saamiga u qaybiyay amaan iyo mahadnaq laguma soo koobi karo ducay mudan yihiin waanu idin ducaynaa Ilaahay idinku asturo waxaan idin raacinayaa ammaanta iyo mahadnaqaha kaga hadhina shaqada sii kordhiya faraska jeedalka waxa loola dhacaa baa la yiri orodka ha kordhiyo shaqada noo sii kordhiya معاشر دير هيدمو شركنا وينو حريهي جزاكم الله خيرا نسو حاضركينا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته